Asalaamu calaykum. Waxaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Saynisyahaankii soo saaray xisaabta aljabrada iyo cilmi-falagga ee Muslimka ahaa ee dunida wax badan kusoo kordhiyay, waxaana loo tixgeliyay inuu ahaa aas-aasihii xisaabta aljabra ee aan aadka u naqaano maanta. Sidoo kale, wuxuu ahaa mid aad u horumariyay juqraafiga iyo wareegga dhulka, isaga oo soo bandhigay in xisaabta lagu daro nambar zero, waana dhaqangeliyay. Ninkaasi aqoonyahanka ah waa Al-Khwarizmi. Magaciisa oo buuxa waa Maxamed ibn Muusa Al-Khwarizmi, oo lagu naanaysi jiray Abu Cabdallah. Waa caalim kaasi oo noolaa xilligii Cabbaasiyiinta. Al-Khwarizmi wuxuu ku fiicnaa dhinacyo badan oo sayniska ah, sida xisaabta, fiisigiska, iyo juqraafiga. Al-Khwarizmi wuxuu kaloo gacan weyn ka geystay horumarinta cilmiga sayniska, isagoo ku daray lambarka eber, qoyska tirooyinka, wareejinta tirooyinka Hindida, dhaqanka reer galbeedka, iyo soo bandhigidda nidaamka jadwal-tobanlaha. Maxamed ibn Muusa Al-Khwarizmi wuxuu ku dhashay magaalada Khwarizm ee Khorasan sanadka markuu ahaa 773 miilaadiga. Markii dambe wuxuu u guuray qoyskiisu agagaarka Baghdad, gaar ahaan tuulada Khadrabal, halkaas oo beerihii aabihii ku yaalay oo ka shaqayn jiray subaxdii. Al-Khwarizmi intii uu qaangaadhka ahaa wuxuu si fiican u bartay ku hadalka luqadda Carabiga iyo Faransiiska. Wuxuu kaloo aad u jeclaa inuu fuulo faraska, wuxuuna ka qayb qaadan jiray tartamada fardaha. Halkaasna wuxuu joogay 2 sano. Al-Khwarizmi wuxuu kaloo bartay luqadaha Turkiga iyo luqadda Giriigga si uu u turjumo buugaagta Giriigga, gaar ahaan buugaagta khuseeya xisaabta. Kadib markii uu turjumay, wuxuuna ku habeeyay maktabad lagu magacaabi jiray Al-Xikma, ama loo yaqaan Akadeemiyadda Xikmadda iyo Aqoonta ee Bayt-ul-Xikma, taasi oo ku taalay magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. Buugaagta uu turjumay waxaa ka mid ahaa The Indian Account, oo sharxaya aas-aaska isku-geynta iyo kala-goynta. Kadib dhimashadii Haaruun al-Rashiid ee khaliifkii Cabbaasiyiinta, Al-Ma'muun ayaa u magacaabay Al-Khwarizmi inuu noqdo khasnajigii buugaagta maktabadda qasriga. Halkaas Al-Khwarizmi wuxuu ku soo bandhigay kitaabka Sindihind al-Sandaad oo khuseeya cilmiga fiisigiska iyo cilmiga falakga. Goor dambe, Al-Khwarizmi wuxuu soo ururiyay dhammaan sharciyadii iyo aragtiyadii la xiriiray aljabra, wuxuuna dhammaantood geliyay kitaab Al-Jabr al-Muqabbala la yiraahdo. Waxa kale uu qoray buugga The Complete Book, Complication and Balance, kaas oo isna gacan weyn ka geystay fahamka xallinta isla-egyada toosan ee afar-galayaasha ah. Marka lagu daro doorkiisa xisaabinta mugga weyn ee geometriga, Al-Khwarizmi shaqadiisu kuma koobnayn cilmiga fiisigiska iyo xisaabta oo keliya, laakiin wuxuu kaloo ku fiday in lagu daro juqraafiga. Wuxuu ku sharxayaa macnaha ereyga gobol, dabeecaddiisa, qaab-dhismeedkiisa. Waxaa intaa dheer inuu ahaa kii ugu horreeyay ee dhiga shuruudaha aljabrada. Al-Khwarizmi wuxuu dhintay 847 miilaadiga, kuna beegan 232